بسم الله الرحمن الرحيم aad baad u mahadsantihiin dadka Soomaaliya waxaan rabaa horta inaan dareensiyo dalkan 5 sano oo wuxuu soo maray kadeedka dhibaataha uu soo maray oo madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday in sidii sharciga iyo dastuurku ah uu midna marin oo wuxuu doona ka sameysanahay gudiyada madaxa banaan iyo gudiga dastuur gudiga garsoorka oo dhan markii la magacaabayo process bay leeyihiin system la soo maro process bay leeyihiin in xukuumaddu soo gudbiso baarlamaanka la horkeeno labada baarlamaan u codeeyaan qaraar ka soo saaraan madaxweynuhu markaas ka bacdi saxiixo saatee gudiyadan markii la sameeyay garsoorka labadaba la sameeyay gudiga musuqmaasuqa iyo gudiga garsoorka labadaba markii la sameeyay madaxweynihii waqtiga joogay go'aan asaga u leeyahay wuxuu keenay nidaam sharci oo dawliga ku musan keenin labadii baarlamaan oo aqalkiisa iyo aqalka hoose isku diro madaxa la isu galiyay asagoo marka sharcigan waxa weeye markii gudiyada nooca la marahayo ama gudiyada madax banaan ama garsoorka waa in labada aqal u codeeyaan oo labada aqal la horgeeyo oo si u ansixiyaan maadaama labadii aqal uu isku diray oo iska horkeen labadii baarlamaan la isku diray baarlamaanku dee xukuumadda madaxweynuhu inta qaaday buu baarlamaan hal dhinac ka ansaxsaday markuu ansaxsay dantu laha waa ka gaari daniisu ku qabsaday kan musuqmaasuqa wuxuu yiri waxa musuqmaasuqa qaban kartaan ma lahan wixii musuqmaasuq naga hor yimaado musuqmaasuq shabadeeyo garsoorkii wuxuu yiri wax allaale wixii garsoor naga hor yimaado idin madax banaantiina noo soo xiro noo soo qabta noo soo afduuba horta wuxuu ahaa markii hore gudiyo xaaraan lagu dhisay markii hore ahaa maadaama sharci iyo nidaam iyo dawladnimo ayna ku imaan de madaxweynaha hadda yimid inuu inta wixii kala diro gudiga musuqmaasuqa iyo gudiga garsoorka oo sharci iyo nidaam iyo dawlad iyo system lagu keeno oo xukuumaddu soo process garayso baarlamaanadii labada aqal la keeno sharci ka soo saaraan soo dajiyaan shuruucdoodii keenaan madaxweynaha loo gudbiyo kaasa waxa la yiraahdaa nidaam dawliga la yiraahdaa marka waxaan filayaa madaxweynuhu inuu ogaa oo la socday sharci darrada labada gudiyo kala badan lagu aasaasay baa madaxweynuhu la socday marka madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay mar inuu maaragtay gudiyadaas kala diro si dalkan loo hago wada toosan loogu hago haddii nidaamka dawliga ah oo sharciga la maro oo sida dastuurku qaban la maro oo gudiyadan madaxa banaan iyo garsoorka gidi waxay ku yimaadaan nidaam dawliga ku yimaadaan nidaam dastuuriga ku yimaadaan lala tashado hay'adaha quseysay maamul goboleedyada lala tashado la isla soo meel dhigo ka bacdi golihii wasiirada loo soo gudbiyo golihii wasiiradu golayaashii baarlamaanka horgeeyaan shuruucda loo sameeyo madaxweynuhu loo gudbiyo oo madaxweynuhu saa ku saxo nidaamka dastuuriga haday ku yimaadaan oo gudiyadaas uu noqdaan gudiye ka madax banaan hay'adaha dawladda ay noqdaan oo sidii dawladnimo ay u shaqeynayaan oo nin u shaqeynin oo nidaamka ay soo maraan hadii madaxweynaha yimaado bedel sharci darro ku bedeli laakiin bedelka waxa keenaya khaladaadka waxa keenaya markii la sabnin inta wixii samaysto oo dantiisa gaarka kaga shaqeysto oo asaga ay u shaqeeyaan oo tiisa ay fuliyaan oo ay qaran u shaqeyn oo dawladnimo ay u shaqeyn waa ku qasbaya madaxweynaha yimaada inuu kala diro waa ku qasbaya markan umayna shaqeynayeen nidaam dawlad uma shaqeynayeen shakhsi u shaqeynayeen marka saan u kala saarno gudiyadu haday shakhsi u shaqeynayaan sidii hadda kuwa la kala diro ka shakhsi u shaqeynayaan madaxweynaha imaanaya waa ku qasbaya inuu cadaalad shaqo kala diro laakiin hadii ay madax banaan yihiin oo shaqadoodii sidii caadiga u wataan oo ayna cidna ku milmin madaxtooye ku milmin baarlamaan ku milmin ra'iisul wasaare ku milmin maamul goboleed ku milmin oo ayagu ay u taagan yihiin shaqadii dawliga u taagan yihiin oo dawladda horumarkeeda u taagan yihiin oo nidaamkii iyo shuruucdii loo idmaday ay ilaalinayaan adeertaanina ma kala diri karo waana sharci darro haddii saa lagu kala diro laakiin wixii sharci darro ku yimaada waa la kala sharci darradii sharci ku yimaadeen baa laga qabanaya waa la kala diraya horta dagaal sidiisa saameyn buu leeyahay dhibaato badan buu keenayaa dagaal sidiisa wax badan buu keenayaa wuxuu keenayaa colaad badan buu keenayaa wuxuu keenayaa dhaqaale darro keenayaa wuxuu keenayaa amni darro keenayaa laakiin intaasoo dhan waa in laga digtoonaada mar dalku dawladuhu haday dawladihii adduunka u waaweyn Ruushka dagaalka gashay oo Ukraine la gashay waad aragteen adduunka oo dhan buu saameeyay
maciishadii baa kacday shidaalkii baa kacay wax walba kacay seeda dagaal meel uu ka dhacay isbedel waa ka imaanaya laakiin dagaalkaas waa inuu noqdaa dagaal aad ka fiirsatay oo aad ka farabuuxsatay oo aad ogtahay guushiisa inaad ku gaaraysid marka dagaalku dhinacyo badan buu hadba qasaarana waa leeyahay xumaantana waa leeyahay markii qasaare faa'iidana waa leeyahay faa'iido wuxuu ku leeyahay hadee dalkiiba amni laga dhigay oo dalkiiba maartay dhibaato badan oo joogtay laga qabtay dhibaato badanna waa leeyahay oo waxa badanaya khaladaadka iyo maaragtay dilalka iyo dhibaatada iyo qarxida sii badanaya marka labadii dhanba dhibaatadaas waa leeyahay marka waxaan rajaynayaa dagaalkan hadda madaxweynuhu ku baaqay oo socda inuu noqdo dagaal Soomaaliya nabad iyo horumar u keeno oo Soomaaliya ay ku xasili doontaan baan filayaa tiisa waa inuu dagaal siisaba faa'iidana waa leeyahay qasaarana waa keenaya waa qasab waa imaanaya nimanka maaragtay dhinaca kale hadii warbaahintii la yiraahdo warkooda ma sheegi kartaan waxa weeye muxuu ahaa annaku ma fayooba ceelno uma qodna ceelno magaciis weeye sheekadu waxa weeye warbaahintii hadii dawladda kaliya ay sheegaan dhinaci kale laga qaribay laga dilahaya dawladdi waxay kii dhinaci kale haday sheegaan dawladdi baa dhibaateynaysa oo dhibaato badan u geysanaysa marka labada dhanba dhibaato waa ka imaan kartaa laakiin dawladda waxa laga rabaa wax walba inay balaasis garayso dawladda waxa laga rabaa dulqaad iyo samir laga rabaa oo dawladda waxa laga rabaa inay saxaafadda oran wax ma sheegi kartaan wax ma hadli kartaan taa macnaheedu waxay noqonaysaa oo hadda adduunka arkaya saxaafadii si gaar in loo caburiyay oo yaani hal shay saxaafaddu waxay u taal inay wax walba sheegto khaladaadka dhacaya dhinaca kale oo maaragtay dadka dawladdu la dagaalamaysa khaladaadkooda iyo dhibka ku dhacay iyo khaladaadkooda iyo waxay sameynayaan warbaahintu waa inay sheegaan dhinaca dawladdu horumarka iyo wanaagay gaartay waa in warbaahintu sheegtaa marka waxa weeye aynaga waxa inuu ku maqan wali umaynaan ilbixin qaabka warbixinta iyo maaragtay qaabka ummadda wax looga gado iyo maaragtay looga dhaadhacsho wali si fiican umaynaan baran marka waxaan oran lahaa bal warbaahinta maaragtay yaan labada dhanba la seejine bal si degan oo wanaagsan oo dawladuna og tahay cidka warbaahinta dhibaato ay ugu imaanaynin in wax loo wadan jeclaan lahaanu waa su'aal fiican su'aashaana dadku aad bay in badan ii weydiiyaan horta haddaad wax mucaaradaysid waxaad mucaaradaysid waa inay noqotay wax adigu aad jeebka kala soo bixin waa inay noqotaa waxaad mucaaradaysid oo aad leedahay waxaana qaldan wax ummadoo dhan u jeegdo oo la arkay oo inuu qof walba ishu ku dhacay waa inay ahaato dawladdaana hadda waqti maba gaarin bishii shanaad ba hadda maraysa waqti la mucaarado iyo waqti la dhibaateeyo ma jirto hadii dalku dawladdaana waxay la kulmaysaa dhibaato aad u fara badan oo laga dhaxlay 8 Febraayo 2017 dhibaato badan laga dhaxlay qodxa badan oo la aasay dadkii oo la kala irdeeyay maamuladii la isku diray ummadii cadow la isaga dhigay cadaawad badan oo shacabkii dhex gashay waa horta dawladdaana ku dhex jirtaa waxaasoo dhan baa la rabaa dawladdaana horta inay maartay bal ay dhiriso oo ka baaraan degto oo ummadii la isu keeno oo cuqdadii la kala gashay iyo dhibaatadii la kala gashay horta dawladdaana isu keento kan maanta dawladda mucaaradayana uma arko mid xal dawladeed wada mucaaradnimadu sideeda dawlad aan mucaarad lahayn horta dawlad ma ahan mucaaradnimadu waa labo waa mid wax burburinaysa oo dhibaateynaysa dalka oo sida dagaalo iyo nin hubaysan iyo muxuu ahaa oo dalkii dhibaateynayo mucaaradna waxa weey waa mucaarad tilmaamaysa khaladaadka dawladda ka dhacaya dawladda taas dan ugu jirtaa in dawladda ogaato meelaha dhaliishu ka jirto dawladda la rabaa inay iska saxdo sharciga leeyahay dawladda sharci bay ku tumatay waxa la rabaa dawladdu inay sharciga ilaaliso horta waxa weeye mucaaradnadu waa midaas marka anigu dawladdii hadda baxday waxaan ku mucaaradi jiray ma ahayn dawlad aan ama qabiil ku ceyrsanahay ama shakhsi nacayb aan ku ceyrsanahay khaladaad kan dhacay iyo dastuurka lagu tumanayo iyo dalkan meesha laga soo ceshay iyo meesha la wada tilmaami jiray niman dhibsanayay ahay niman markaa tiraad war waxaana fiican ee wadadan hal maro qaran duus baa kule faan iyo xayeysiin marka ula tabaadinda kule waa wadan iyo hotel hal ii saxiyeen soo marna marka waxa weeye dawladdan hadda wax lagu mucaarado waqtigan xaadirka ah iyo wax laga sheegay horta ma lahan waa dawlad iyadoo dhan ban cadaab cagaha la gashay 5 sano dhibaato dad waxay bay kala ururinaysaa dagaal bay tiri waa galahayo dalkan haddaan maanta dagaal la gelin oo dalkan la nabadeyn oo dalkan la isu keenin oo wadooyinka la isu furin oo Soomaaliya la isu keenin oo saa loo kala taagnaanana Soomaaliya burburkaasi ku ekaanaysa marka sideeda dawladdu waa inay maxay dawlad ku tahay waa inay dalka amni ka dhigtaa waa inay tilaabo adag qaadaa waa in dalku sharciga iyo nidaamka u hoggaansanaa saasa dawlad lagu yahay marka dadku inay inta fahmaan
waxaan ku soo gabagabayn lahaa dadka Soomaaliyeed aqliga iyo sharciga iyo maskaxda iyo aqoontu ha shaqeyso dalkeena maanta gacan inuu kuma jiro dadkii u haysta inaynu dawlad buuxdanahay wali dawlad buuxda ma nihin dad baa waa madax banaanahay ma madax banaanin inta amisoona ilaalinayso oo ciidamadooda la joogaan oo xalana ayna madaxdeenu gali karin oo ilaa xeebihii ilaa xeebihii oo dhan safaarada laga dhigtay oo muxuu ahaa baddaas wixii doona laga soo degsanayo oo habeenkii labada habeenimo diyaaradu soo degayso waxay doonta ka qaadanayso oo diyaarad labada habeenimo soo degayso waxay qaadayso iyo waxay keenaysan aan la aqoon dawlad madax bannaan midna waxaynu ku soconaa oo nala ku xubaa chapter 6 baana la ku xukumaa adduunka waxa lagu xukumaa waa laba chapter baa adduunka ku xukumaa chapter 7 oo ah dalkaas dal la maamulayo oo United Nations maamulayso oo dhaqaalahooda hay'ad loo soo marsiinay inuu yahay chapter 6 na waxa weeye ama qodobka lixaad waxa weeye waa dawlad kor laga maamulo laakiin xoogaa yar loo yeeriyo oo leeyahay madax banaantiin laakiin la haysto marka wali waxaynu ku jirnaa gacan dawlad adduun baan ku jirnaayo sidaynu gacanta isaga saari lahayn oo dalkeena u madax banaanan lahayn oo dalkeena maaragtay inagu aan dhisan lahayn oo beeraheennii iyo adduunkeena aan faran lahayn oo aanu joojin lahayn xaalufintan dalka la xaalufinayo dhirtii la jarayo la xaalufinayo aanu joojino waxyaabahaas oo dhan ma rabaa dawladdan oo go'aan ka soo saarto ama maamul goboleed ha ahaado ama dawladda dhexe ha ahaato dhirtii baa la xaalufinaya nabaad guur baa ku socda adduunku waa saxaro saxaradaas waxaad arkaysaa ilaa 20 kilomitir square ama 200 kilomitir square cilal biyood baa inta loo sameeyay dhir lagu beeraa adduunku dhir buu raadsiyaa laakiin aynaga ilaahay hawuuna siiyay dhir baan leenahay dhirtii baan jaraynaa beeraheena kama faa'iideysano dhirtii baan jaraynaa aynaga dhibaato isugu fulan marka dawladdana waxaan jecelahay baaqiga u dambeeyay inay go'aanka ka soo saaraan oo ay la joojiyo dhirta la jarayo la joojiyo dhuxushaan maaragtay waxyaabo kale loogu bedelo dawladnimaduna ma aha in ciyaar iskuma imaanay dawladnimada waa in meegta la dhoodhoobaa oo la taageeraa hadda dawladda khaladkeeda wax ka sheegaysina si sharciyeysan oo nidaamsan dawladda u tus oo sheego khaladkan aan dhacayde si dawladdu marka madaxda dawladdu daldalooladaas loo sheegay si isaga awdo aad iyo aad mahadsantii